ويا لايف كيف وجرنا حلوان أحمد معلم قد هو بيجوبتا ما أنت يكور رحت مركب ورس دريك degmada hobyo magaalada hobyo taariikhiga iyo qadiimiga سفيع ummadda Soomaaliyeed magaalooyinka waaweyn dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya ku yaala kamida سفيع ayaan maanta xalay soo gaarnay maanta joognaa birina joogi doonaa hadii la yiraahdo magaalada sida muuqata ilaahay wuxuu siiyay qurxiyo jamaal bilici udgoon weynta India oo buluuga ayaan maanta ag joognaa waxaan runtii ka marqaati kacaynaa in dad fiican meeshan degan yihiin martisoorkooda soo dhawayntooda laakiin dhanka kale waxaan qiraynaa in meeshaan la hagraday dowladihii Soomaaliya ilaa iyo 60kii soo jiray inay hagradeen inaan wax development iyo horumarina degmadan aysan helin iyo dadkeedu ayadoo badan weyn ay leeyihiin 700 kiiloomitir waxa u jirta boosaaso 7 kalena xagga waxa u jirta muqdisho dadka meeshaan degan meel isolated ayay degan yihiin waxayna isticmaalaan dekada ka fog badeecooyin la soo cashuuray 10 jeer ayay ku nool yihiin runtii waxay u qalmaan in lagu abaal mariyo 58 sano xorriyadda Soomaaliya kadib oo ahayd sanadkii koowaad inay helaan dekadooda in lagu abaal mariyo 58 sano kadib inay dekad helaan oo dawladda Soomaaliya waajibka ka saaran ay ka go'do ummadda halkaan u dhalatay ee dadka reer galmudug guud ahaantoodana inay maal gashadaan meel heli kara maahan ninkii xanuunsan waa ku caafimaadayaa kii xoogaa yar qabaa waa boodayaa allaygu waa iska soo qabso gacantaada aargoosatadu waa la mid dee wixii kaloo macdan iyo xilli waan hadaan kula kaftamo maadaama madaxweynuhu uu soo maray meelo badan oo ariga iyo geela aad looga isticmaalo markaan waxaa leedahay argoosatadii kalluunku halkan carsaan iyo argoosato iyo malaayga noocyadiisa